xaaladan waa ku meel gaar. Ma aha dhamaadka adduunka, noloshaada weli way socotaa oo waad neefsanaysaa, jirkaagu isma dhiibin, balse wuxuu doonayaa nolol. Waxaad wax u cuntaa oo aad u seexataa si jirkaagu u helo raaxo. Fiiri dhinacyadaada, waxa isbedbedelaya habeen iyo maalin, si uu kuu dareensiiyo murugadu in aysan joojin karin waqtiga, ilmaduna aysan waxyeeli karin isbedelka maalmaha adduunka. Fikirka badanna aysan murugtada kaa qaadi karin. Waan dareemi karaa xaaladda adag ee aad gudahaaga ka dareemayso, taas oo keentay in aad ku noolaan weydo noloshaada dhabta ah ee aad mudneed. Waan dareemi karaa murugada kugu reebtay fikrado, cabsi iyo walwal ah. Ha ahaado saaxiib dhow oo ku khiyaanay, jiro lagugu imtixaanay, walwal aad ka qabto mustaqbalkaaga, shaqo aad heli weysay, dad garan waayay qiimahaaga, ama niyadda kaa dhaawacay taasoo marnaba aadan u qalmin. Ogsanow, dhibaatooyinka ma aha dhamaadka noloshaada. Waa in aad madaxaaga ka buuxisaa fikirka ah in xaaladaadu si walba u adag tahay aad ka gudbi doonto, uuna yahay mid ku meel gaar ah oo lagaaga baahan yahay in aadan adigu joogsan. Ninba hadda ka hor dhihi jiray, waxaan had iyo jeer ku guuleystay in xilliyada murugada iyo walwalka aan maskaxdayda u sheego 3 eray oo ah: xaaladan waa ku meel gaar, xaaladan waa ku meel gaar, xaaladan waa ku meel gaar. Balse si fiican ila fikir, ma laga yaabaa in fikirka badan uu kaa joojin karo dareenka murugada ku haysata? Taasi waa maya. Marka waxa ku wanaagsan, halkii aad diiradda saari lahayd ka fikirka dhaawac ku soo gaaray oo aad murug iyo niyad jab la fadhiisan lahayd, in aad naftaada ku tababartid in dhibaatada aysan ahayn dhamaadka rajadaada, oo wax walba sida hore oo kale u socdaan, laakiin adiga aad joogsatay, oo markaasna lagaaga baahnaa in aad horey u socoto si aad uga gudubto dhibaatada ku soo gaartay. Markaasna waxaad noqonaysaa qof ka adkaada xaalad walba oo adag. Naftaada jeclow, naftaada ayay ka bilaabataa farxadda aad raadinaysid. Iska xir albaabada uu ka soo galo shaydaanka si uusan kuu dareensiin murugo badan. Xoogga saar in aad ku raaxaysato waxyaabaha maalinlaha ah ee caadiga ah. Tusaale ahaan, ku cab shaaha koob aad jeceshahay, xiro dharka aad ku qurux badan tahay, marso cadarka kan aad ugu jeceshahay, la sheekaysto dadka sheekada kugu baxdo. Markasta ilaali dareenkaaga gudaha, sida aad jirkaaga uga ilaaliso qabowga iyo kulaylka. Noqo qof jecel naftiisa oona ka ilaali wax kasta oo xanuujin karo. Ku mashquul naftaada waxa anfacaya si aysan u helin firaaqo, sababtoo ah firaaqada ayaaba ah bilowga wahsiga iyo dhamaadka rajada. Hagaaji xiriirka aad la leedahay naftaada, qiimee oo u mahadceli naftaada wixii wanaagsan ay samayso, haba ahaato in aad u dhoola cadayso qof aadan aqoon, wadada waxa dadka dhibayo aad ka qaado, qaraabada aad xiriiriso, sadaqo aad la baxdo, salaad sunno ah oo aad tukato, quraanka aad akhriso. Ku dhiirigeli ama ku abaalmari in wanaaggaas oo kale ay joogtayso si farxadaada u noqoto mid joogto ah. Naftaada cafi oo qira waxa qaldan. Waxaad tahay qof qaldami kara oo bini'aadam ah, oo haddana diyaar u ah in uu saxo go'aanadii qaldan ee uu ku dhaqaaqay. Haddii ay tahay dambi naftaada aad ka gashay, naftaada cafi. Haddii ay tahay dambi Allah subxaanahu wa tacaala aad ka gashay, ka shalay, kadibna Alle dambi dhaaf weydiiso. Haddii ay tahay dambi aad dadka ka gashay, weydiiso in ay ku cafiyaan. Taasi waxaa ku jiro caafimaadkaaga iyo farxadaada.